السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناقصن خيارتنا داونيسا ay goob ka soo nagala janqaadaysaan ku soo dhawaada warka kooban ee telefishinka wacyi anigoo afaganda Cabdi Cumar ayaa idin waramaya qodobada aan idin hayno kuwooda ugu mudan waxa kamid ah madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Dani oo iska diiwaan geliyay ururka xukuumadda xilli Puntland ay wajahayso xaalado adag maanta ay taariikhdu tahay 22 May 2020 madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdilaahi Dani waxa uu maanta si rasmi ah isaga diiwaan geliyay urur siyaasadeedka ka Puntland iyo Galmudug oo xal u raadinaya xiisad colaadeed oo sababtay khasaare nafeed ugu horeyn waxaan halkan anagu midaysan ka tacsiyeynaa dhammaan intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantayba waxaan kaloo rabnaa inaan idinla socodsiino in la isla gaaray in xabad joojin la qaato oo haddii ilaahayno inta halkan taagan dhammaan ay isla qaateen inta ka maqan ay ugu baaqayaan uguna yeerayaan in xabad joojintaas wax ka qaataan haddii ilaahayno waxa kaloo la qabtay sida uu sheegay senatorku guddi kormeera xabad joojintaas oo ka shaqeeya hirgelinteeda haddii ilaahay oo dhinaca Puntland iyo dhinaca Galmudug labaduba isku dhaf noqon doona haddii ilaahayno oo wada shaqeyn doona diyaar garowga ciida ayaa dhakhaatiirtu soo jeedinayaan in fariimo caafimaad ciida waxa la dhibaato badan oo ka timaada waxyaalaha ilmaha ay ciyaarta ku ciyaaraan oo ay ka mid tahay bisooda rashka bisooda fuusha khaasatan tambaaruda waxay noo keenaan dhibaato badan waxyaalo badan ilmuhu ku ciyaari karaan baa jira xanuunka COVID-19 iyo Soomaaliya ayaa sii kordhaya xilli lagu guda jiro diyaar garowga ciida السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa soo kordhay COVID-19 22 xaaladood ayaa wadanka ku soo korortay coronavirus ah waxaa rag ah 14 waxaa haween ah 7 19 waxaa laga helay banaadir laba kamid ah cadada aan kor ku soo sheegnayna waxaa laga helay Puntland da'da haddaan fiirino dadka u dhaxayso oo laga helay da'dooda meesha inta u dhaxayso 20 iyo ka yar waxa waaye eber 20 iyo 39 waxa waaye 68 40 ilaa iyo 59 waa 21 60 iyo inta ka sareysana waa 11 tirada guud waxay isugu tagaysaa oo COVID-19 wadanka laga helay 1594 ma jirto geeri cusub ilaahay mahadiis tirada guud ee dhimashadana waxay taagan tahay 61 waxaa bogsaday ilaa iyo 16 qofood tirada bogsashadana waxay tagaysaa 200 ayaa laga soo saaray shir ay qabteen madasha xisbiyada qaran iyadoo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed waxgaradka iyo odayaasha beelaha Soomaaliyeed annagoo ah waxgaradka iyo odayaasha beelaha Soomaaliyeed waxaan walaac ka muujinaynaa xaaladda siyaasadeed amni dhaqaale caafimaad iyo bulshada ee dalku hadda ku sugan yahay waxaa bulshada Soomaaliyeed ku dhacay waayihii dambe aafooyin badan oo ay ka mid yihiin cudurka safmarka noqday ee coronavirus ama COVID-19 oo noqday mid ku sii baahayo bulshada dhexdeeda iyo fatahaado ay sababeen roobab biyaha webiyada Shabeelle iyo Jubba kuwaasoo keenay dhimasho barakac iyo burbur hantiyadeed oo soo gaaray muwaadiniinta ku nool deegaanadaas Soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xaalad siyaasadeed oo jahwareer ah taas oo aan la garanayn jihada ay dalku ku socdo iyadoo lagu jiro xilli kala guur ah ayaysan ka muuqan hay'adaha dastuuriga ah hanaan loogu diyaargaroobayo doorashada dalka oo ay ka dhiman tahay in ka yar 8 bilood taasoo aan ka baqayno inay horseedo khalkhal siyaasadeed oo laga baaqsan karo xaaladda amniga dalka oo faraha ka baxday
dowladdu fursad siisay kooxaha argagixisada inay weeraro joogto ah ku hayo guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho taas oo ay u sii dheer tahay xanibaadda isu socodka oo sababay saameyn dhaqaale waxbarasho caafimaad iyo adeegyada guud iyadoo marka ka dambaysa si xumaanaysa isu socodka iyo adeega bulshada sidoo kale dowladda waxa ay hurinaysaa colaado sokeeye oo ka aloosan gobolada kala duwan ee dalka waxaan aad ugu walwalsanahay xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee sii xumaanayo iyo weerarada ay dowladdu ku hayso maamul goboleedyada una adeegsanayso ciidamada qaranka dana siyaasadeed oo gaar ah iyo dowladda dhexe oo u muuqato mid aan doonayn wada hadallo iyo dib u heshiisiin. waxaan soo gaarnay xubintii ciyaaraha iyo Socdi Awiif. Socdi ka waran umuuraha ciyaaraha iyo xagay wax marayaan. waad mahadsantahay Fagande Ramadaan Kariim dhamaan asxaabta warka iyo oo daawanaysa iyo sidoo kale xubinta ciyaaraha dabcan waxaan la wada soconaa in coronavirus uu markaasi hakiyo horyaalada qaaradda Yurub, Afrika iyo Soomaaliya dabcan horyaalka Premier League waxa la rajeynayaa in uu sida ugu dhaqsiyaha badan uu u soo laabto inkastoo wali waqti aan la cadeyn laakiin kooxda Liverpool ayaa noqotay kooxda ugu horeysay oo tababarka si toos ah u soo laabata Fagande waxaan la wada soconaa in horyaalka Bundesliga uu isagu mar hore wada sabtidii hore haddana uu socdo marka waxa la rajeynayaa horyaalada kale oo dhiman in sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabi doono qodobada iyo kuwa kale xiiso badan waxaad ku maqli doontaan xubintii ciyaaraha. kooxaha Real Madrid, Bayern Munich iyo Inter Milan ayaa ku heshiiyay in ay wada dheelaan koobka Solidarity Cup oo ay ugu talagaleen in ay kula dagaalamaan coronavirus iyagoo oo wada jira Bayern Munich, Real Madrid iyo Inter Milan waxay wada dheeli doonaan European Solidarity Cup sanadka 2021 saddexda naadi waxay rabaan inay markaasi diraan fariin midnimo isla markaana ay u adeegsadaan lacagaha ka soo xaroodo in ay ku taageeraan kaabayaasha caafimaadka ka hortaga ee coronavirus wadajirka iyo in la muujiyo muhiimadda wadajirka ee Yurub saddexda naadi waxay ku heshiiyeen in ay koobkan si geesinimo leh ay markaa u soo bandhigaan Dani Ceballos ayaa si kaba ah u dusiyay waqtiga la ciyaari doono horyaalka Premier League England xidiga khadka dhexe ee kooxda Arsenal Dani Ceballos ayaa shaaciyay waqtiga uu dib u bilaaban doono horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan si walba ay ahaataba Ceballos ayaa muuqda mid si maldahan u sheegay in uu muddo bil kadib marka lagu soo laaban doono horyaalka Premier League England isagoo oo wareysi siinaya idaacadda RTVE ayaa Ceballos ka baxsatay waqtiga la bilaaban doono horyaalka Premier League ee markaas la rajeynayo in dhawaan la bilaabo Lucas Joe ayaa markaasi shaaciyay in Robin van Persie cusub oo haatan markaa ka tirsan kooxda Manchester United xidiga daafaca uga ciyaara kooxda United Lucas Joe ayaa sheegay inuu weeraryahanka da'da yar ee Mason Greenwood uu noqon karo Manchester United ka markaasi waa Robin van Persie cusub xidiga Mason Greenwood ayaa markaasi qaab ciyaareed cajiib ah ku qaadanaya xilli ciyaareedkan kooxda Man U xidiga 18 sano jirka ayaa dhalay 12 gool afar kalena caawiye ka noqday 36 kulan oo tartamada oo idil ah isagoo oo 20 kamid ah kulamadaas kaydka markaa ka soo kacay yaal wanaagtaas xubintii koobnada ciyaaraha aan dib ku celiyo warkii oo kooban iyo Fagande Cabdi aad baad u mahadsantahay Socdi inta ayaan ku soo ileynaynaa warkii koobnaa ee telefishinka Wacyi anigoo Fagande Cabdi Cumar ayaa idin waramayay waaniyo baxdi wacyi oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh